بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داوديال sidaan hore idinku sheegayba waxaan idin hayaa warbixin la xiriirta gulihii waaweynaa ee dowlad goboleedka Jubbaland ay ka gaartay arrimaha diblomaasiyadda tan iyo markii dagaalkii xoogganaa ee ka dhacay deegaanka Raskamboni ee u dhaxeeyay ciidamada Jubbaland iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya ee halkaas ay geysay dhawaantan ayaa waxa markii dagaaladaasi ay soo afmeermeen isku day kala duwan ay dowladda federaalku sameysay taas oo ay barigantaashay dowlad goboleedka Jubbaland haddaba isku dayadii kala duwanaa ee dowladda federaalku ay qaaday maxaa kamid ahaa Jubbalandna ay guule ka gaartay waxaa kamid ahaa aynu ka soo bilowno dagaalkii Raskamboni ka dhacay dagaalkaas wuxuu ahaa mid dhiig badan oo ku daatay laakiin dowladda federaalku ay fadeexad weyn ay ka soo gaartay dagaaladaasi geesta kale dadaaladii dowladda federaalku ay qaaday ama dagaaladii ay qaaday waxaa kamid ahaa in dowladda Kenya ay u dacwootay iyadoo markaasi dowladda federaalku iska dhaadhicinaysay in Jubbaland ay markaasi marnaba aysan taagin dowladda Kenya hayeeshee taasna dhalanteed ay noqotay markii shalay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo uu ka dhoofay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam sidaas si lamida dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay qaaday tallaabooyin kale oo la xiriiray dhinaca gobolka Gado oo dowladda Itoobiya ayay dowladda Soomaaliya waxa ay bilowday in ay ku wareejiso badda Saylac taas oo markaasi toddobaadii ka hor ama bishii aynu ka soo gudubnay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo si weyn uga dhaliilayay dowladda Itoobiya kuna tilmaamayay in ay tahay cadow Soomaaliya ay leedahay hayeeshee waxa markaasi la tilmaamayaa in madaxweynuhu markaasi uu haatan ku soo fashilmay dhankaasi marka la eego dadaaladii uu qaaday sababtoo ah waxa uu ka sugayay in gobolka Gado lagu wareejiyo taasna waxay noqotay dagaalkii gobolka Gado mid dhalanteed noqday oo meel cidla ku soo afmeermay waxaana markaasi taasina ay kamid ahayd qodobadii amaba weeraradii ay qaaday dowladda federaalka hadda marka dowladda Jubbaland waxa ay markaa maraysaa in ay ku guuleystay dagaalkii military iyo sidoo kale kii diblomaasiyadda marka la eego dhanka diblomaasiyadda hadda waxa magaalada Nairobi ku sugan madaxweyne Axmed Maxamed Islaam waxa uu magaalada Nairobi kula leeyahay safaaradaha kala duwan ee beesha caalamka ee ku yaala magaalada Nairobi sidoo kale saraakiil iyo madax ka socota dowladda Kenya ayuu halkaasi kulamo kala duwan kula yeelanaya waxa sidoo kale madaxweynuhu la kulmaya saraakiil sarsare oo ka socota dowladda Itoobiya haddaba dowladda federaalku iyadoo safarkii madaxweynaha dowladda Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ka duulaysa waxa ay bilowday qorshayaal kala duwan iyadoo dacwad u gudbisay safiirka dowladda Kenya u jooga Muqdisho ka oo ashtako warqad ah la xiriirta loo gudbiyay taas oo ku aadan diyaaradii qaaday amaba safarkii uu ku tagay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam magaalada Nairobi ee wadanka Kenya markaan dhinac badan ka eegno iyo qoraaladii kala duwanaa ee ka soo baxay dhinaca dowladda federaalka iyo weeraradii iyo dadaaladii waxay u muuqanayaan in Jubbaland hadda ay ku sareyso miiska siyaasadda iyadoo horay loo ogyahay dagaalkii military in guulo waaweyn ay ka gaartay haddaba dhageystay ama daawade maxay kula tahay adiga dowladda federaalku waxay qaaday dagaal xaq ku ahaa ama xaq ahaa mise dagaal xaq darro ahaa marka loo eego dhabarjab fara badan oo kaga yimid meelo kala duwan oo markaasi dowladaha dariska oo ay si Jubbaland madaxweynaheeda meesha looga saaro ay xiriiro iyo cilaaqaad kala duwan ay ula sameysay oo meesha ka baxay taas oo gabi ahaanba beenowday sidoo kale waxa meesha ka baxay iyadana dagaalkii gacanka hadalka ahaa ee dowladda federaalku ay waday iyo arrimo kale oo gargaarkii bani'aadanimada uu ka mid yahay oo la siyaasadeeyay hadda dowladda Soomaaliya waxa ay wadaa qorshayaal ay dadka danyarta ahi gargaaradii bani'aadanimo ee loogu talagalay in la cuno qabateeyo oo beesha caalamka loo sheego in gargaarkii la gaarsiiyay Jubbaland hayeeshee wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka Jubbaland ay shalay war-saxaafadeed ee soo saartay ay ku sheegtay marnaba Jubbaland in la soo gaarsiinin gargaar bani'aadanimo haddaba waxaa jirta cuno qabateen dhanka diyaaradaha ah oo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay saartay jubbada hoose ama garoonka Kismaayo iyo sidoo kale garoonka degmooyinka gobolka Gado inkastoo markii dambe tii Kismaayo la xaliyay hayeeshee weli gobolka Gado waxa uu ku jiraa go'doon gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee Doolow sidoo kale waxaa beenowday warar maalmahan dowladda federaalka ilo ku dhow ay shaacinayeen oo sheegay in gobolka Gado dowladda federaalka lagu wareejinayo oo Itoobiyaanku ay ka dalbadeen laakiin taasi ay beenowday
waxaana degmada doolow kusii qulqulaya wasiiro iyo xildhibaano iyo saraakiil ciidan oo ka tirsan dowladda Jubbaland kuwaas oo xoojinaya ammaanka deegaankaas iyo sidoo kale nidaamka dawliga ah ee ka jira gobolka Gado. haddaba daawade wuxuu ku leeyahay xaalka inuu ku dhamaan doono. dadka qaarkii waxa ay tilmaamayaan in arrintan ay ku dhamaan doonto miiska wada hadalka isla mar ahaantaana la isugu tagi doono dhanka teendhada. adiguse waxay kula tahay aragtidaada nala wadaag. aad baad u mahadsantihiin. waa Alex Mayo idin leh nabadgelyo.